واسد شيكتي برخدو waxa maanta maxkamadda gobolka Maroodijeex Hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldambiyad lagu helay eedaysane Boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed oo magaciisu bedel xukunsane ama dambiile xukunkaas uu jira maxkamadda gobolka Maroodijeex waa soo saartay anoo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Almar Ismaaciil ayaa garsoore ka ahaa markii uu eedaysanahay lagu horkeenay muxuu ku eedaysnaa wuxuu ku eedaysnaa laba qodob oo qodobka koobaad yahay 219 paragraph 2 ama faqrada labaad iyo qodobka labaad oo ah 328 xeerka ciqaabta guud labada qodob ku eedaysnaa maxay ku kala saabsan mid wuxuu ahaa in taariikhdu markay ahayd 15 bishii afraad 2018 isagoo ku sugan degmada Carmo oo khudbad ka jeediyay khudbadaas uu ku wiiqayo jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu ku dhalaacay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee ah sugidda xuduudaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas uu ka dhigay kuwa khaldan oo u socda jiho aan loo baahnayn isla markaana habboon tahay in laga kaxeeyo jiido hore oo dib loo celiyo isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidanka dib u qaado kaas qodobka koobaad buu ahaa qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri khudbada uu jeedinayay iyo tagitaanku tagay Soomaaliya gaar ahaan degmada Carmo waxa ii fasaxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo ii fasaxay oo ruqsad uga qaatay shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan aysan afti uga qaatay waxa kale oo fasax uga qaatay ruqsad madax dhaqameedka Soomaaliland oo dhan marka waxa lagu eedeynay inuu been abuur isagoo muwaadin intuu dambi ku soo galay dibadda inuu isla markaana been abuur ka sameeyay shacabka reer Soomaaliland madax dhaqameedkooda iyo madaxweynihii shacabku doortay eedahaad sheegto dhan bad cuskuteen qodobadaad sheegtayna saldhig buu ahaa xukunkaad gaadheen sidaad sheegtay maxaad ku xukunteen marka qodob kale saddexaad baa jira oo ku soo wada kuwaas waa kuwii markii hore lagu eedeynayay qodobka saddexaad waxa weeye saaka markii dacwadda la bilaabayay wuxuu maxkamadda horteeda ka sameeyay aflagaado iyo gaf sharci maxkamadda furan markii xaashida eedda loo akhriyay wuxuu yiri garsoorku waxay igu xukumayaan xukun ay jeebka ku sitaan garsoore waxaad igu xukumaysaa xukun ay jeebka ku sidato markaana waxaan ku xukunkayga ma ogid xaashida eedda ka jawaab ee lagu akhriyay marka contempt of court maxkamadda horteeda waxa ka dhashay qodobka 270 waxay ahayd in ka lagu xukumo markiiba laakiin se waxaan hadana u kaadinay oo anagoo danta guud cadaalad eegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamadda horteeda laga cadeeyo isna istifaaco in istifaaco uu diiday istifaaci maayo waanu ka aamusay istifaaci ma marka sharcigu wuxuu oranayaa silent acceptance aamusaad waa aqbalaad marka waxa lagu xukumay hadaan u soo noqo su'aashaada kale waxa lagu xukumay 5 sano xarig ciqaabeed garsoor sad ogtahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamadda horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labada midna ma joogin ba xarunta xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaan ee dooday ay leeyihiin sidee dacwadaad u siyaanba qaadeen iyadoo qofkii cid difaacdaana joogin isagina aanu istifaacin horta maxkamaddu kuma khasbaneen qareen u qabato qodobada asay sectionka ama ciqaabta oo 10 sano ka sareyso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto maal qofka haddii qareen qabsanin kareyn in maxkamaddu u qabato marka dacwadda kuwa dib baa loo dhigaya laakiin isaga waanu mudaynay waxaan ku dacwadda xilligaas la qaadaya uu yimi qareen muus waa ka haysan marka qareenkaaga inay dibaddu joogaan ayuu yiri soo gali baan ku niri soo galin maayo buu yiri isagoo halka ay taagantii buu galay aflagaado qaawano garsoorka hortiisa marka sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha may oolin oo isagii baa qareenkiisina yiri dibaddu taagan yahay oo soo gashan waayay oo meeraystay isla markaana aflagaado garsoor sameeyay oo cidna u dirsantay marka timaado dadka qaar in dhageysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay erey buu yiri hadal buu yiri dad kale jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xiran oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamadiina xukuntay markaad eegto qof hadal uu yiri ciqaabta 5 sano 3 sano sanado intaan leegla loo xuskanayo lagu xiraya hadal wax ka badan bay geystay hadalku Soomaaliyeed ba hadlaysa Soomaaliyeed ba la xukumi lahaa lagu xukumay waayo waxay dad hadal gabigan wax ma qornaba hadalku laakiin haddii xaq qof kale uu gaarayo adigaaga shakhsiga haduu gaarayo oo ku aflagaadiyo waa dacwoon kartaa you can claim it haddii maxkamadda horteeda ka cadaato lagu xukumay qofka way xaqaagu wax ku dhamaadaa xaq qofka kale intuu gaarsiin marka hadalladaasi
anu dacwadan galay waa tan kuwa kala garsooreyaal baa garo si furan baa iyadana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado deelqaaf meelka dhac qofkii dhibanaha uu ku noqon waayo garsoorku kuma qasbayo uu hadlay ka noqo marka qofka dhibani markuu dacwoodo wixiina maxkamadda horteeda ka cadaadaan weliba hadalkaasi noqdo hadal macna samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiye qadaf ku ah dacwadda waa la qaadaya hadday ku cadaato waanu xukunnaa hadday ku cadaan weydana waanu sii deynaa saxaafadda iyo qoladan human rights centerkuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga maxay uga hadli waayeen oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarannimada jamhuuriyadda somaliland bay ka hor yimaadeen dhayli waanu sii deynaa waa inta xun iyo inta la xukumay ha sheeginayay inta wanaagsan saaxiib yar sheegan u leenay qofku waxa uu leeyahay marka xukun dhaco inuu rafaan qaato rafaankaas mid soo gaar xaq buu leeyahay muddo sharcigu dhigayo 208 xeer kaanka ciqaabta akhri imika maxkamadda horta rafaan kama qaadan laakiin maanta oo xarigiisu ka bilaabmayo ilaa 30 casho waxa sharcigu ogol yahay inuu rafaan qaadan karo marka rafaan